kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal maanta waxaynu fiirin doonaa wararka xiisaha badan ay markaasi ka soo baxayo marinka Gaza ee Falastiin iska caabinta ay sameynayaan xoogaga Falastiiniinta ah oo ay ugu horeeyaan Ciisadin al-Qassam garabka military ee Hamas iyo garabka military ee Jihadul Islam ee Israel Quds waxaynu fiirin doonaa sidoo kale dagaalkan halka uu marayo iyo qasaaraha wali la gaarsiinayo ciidamada Yahuuda ee duulaanka ku qaaday marinka Gaza ee Falastiin mar kale fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkan ha hilmaamin in subscribe-ka aad nagu taageertid si muuqaalo caynkan oo aad u xiiso badan aad halkan uga bogatid waxaan ku horeynayaa war degdeg ah oo imika soo gaarayo ayaa waxa markaasi uu la xiriira ciidamada militariga Israel oo maanta ku guuleystay in ay dilaan hogaamiye ku-xigeenka Hamas Salah al-Aruri kaasi oo ay ku dileen weerar ay kula eegteen caasimadda Beirut ee dalka Lubnaan xubnaha Hamas ee maamula marinka Gaza ee Falastiin waxa ay goorsii horeysay iyana ku dhawaaqeen ama si rasmi ah ay u xaqiijiyeen in Salah al-Aruri lagu dilay duqeyntan ay markaasi fulisay diyaarad aan duuliye lahayn oo drones ah oo ciidamada militariga Mareykanka ay leeyihiin isla markaana hogaamiye ku-xigeenkan guud ee Hamas in lagu dilay caasimadda Beirut ee dalka Lubnaan sidoo kale warbaahinta Al Jazeera iyo wariyaasha qaar ee ku sugan caasimadda Lubnaan ee Beirut ayaa waxa baraha bulshada ay markaasi soo dhigeen muuqaalka qaraxaasi kadib waxaana laga arkayaa gawaari badan oo markaasi gubanayo waxaana qaraxan uu markaasi ka dhacay xaafadda Mashrafiya ee koonfurta caasimadda Beirut ee dalka Lubnaan Salah al-Aruri ugu dambeyn sidoo kale warbaahinta Al-Manar oo Xisbullah ay maamulaan waxa ay shaaciyeen in lala eegtay diyaaraddaasi droonka ah isla markaana lagu dilay koonfurta caasimadda Beirut ee dalka Lubnaan telefishinka Al-Mayadin ee dalkaasi Lubnaan sidoo kale waxa goorsii horeysay ay markaasi xaqiijiyeen geerida ku timid Salah al-Aruri si la mid ah wakaaladda wararka ee Reuters-ka kuwaasi oo iyagana sheegay in Salah al-Aruri oo ahaa hogaamiye ku-xigeenka guud ee Hamas in lagu dilay duqeyntan markaasi maanta ka dhacday caasimadda Beirut ee dalka Lubnaan al-Aruri ayaa waxa uu kamid ahaa asaasayaashii garabka military ee Ciisadin al-Qassam waxa sidoo kale ninkan uu ku dhashay caasimadda Ramallah ee bartamaha dhulka la haysta ee Daanta Galbeed ee sanadkii 1966 ninkan sidoo kale 15 sano ayuu ku soo dhameystay xabsi ku yaala gudaha Israel oo sanadahaasi tirada badan lagu hayay ugu dambeynna waxa dhacday in markii xabsigaasi laga soo saaray in uu cararay dalka Lubnaan oo uu ku noolaa ninkan sidoo kale tan iyo xilligii dagaalkan Gaza uu markaasi bilowday wuxuu ahaa afayeenka Hamas waxaana uu ka soo hormuuqanayay oo uu markaasi warbaahinta la hadlayay xilli waliba isagoona ka warbixinayay dagaalka Hamas ay markaasi kula jiraan ciidamada militariga Yahuuda ee weerarka ku qaaday ama duulaanka ku qaaday marinka Gaza ee Falastiin bishii October sanadkii aynu soo dhaafnay 2023 ciidamada Israel waxa ay burburiyeen oo qaraxyo ay ku weerareen gurigii uu ku lahaa caasimadda Ramallah ee bartamaha dhulka la haysta ee Daanta Galbeed Salah al-Aruri sidoo kale dawladda dalkaasi Mareykanka waxa ay ku tilmaamtay inuu yahay nin argagixiso ah sanadkii 2015 waxaana madaxiisa ay dul dhigtay 15 milyan oo dollar ugu dambeyn Salah al-Aruri waxa maanta markaasi la xaqiijiyay in uu ku dhintay duqeyn ciidamada Yahuuda ay markaasi kula eegteen caasimadda Beirut ee dalkaasi Lubnaan qaraxan ayaa markaa waxa la sheegayaa in uu sabab u noqon doono in xiisada ka taagan xuduudda Lubnaan iyo Israel ay sii xogeysato Xisbullah gaar ahaan hogaamiyahooda Xasan Nasrallah waxa bishii October ee sanadkii tagay uu ku hanjabay haddii ciidamada Yahuuda ay isku dayaan inay dilaan hogaamiyaasha kooxaha iska caabinta Falastiiniinta ama hogaamiyaasha Xisbullah in jawaab adag oo xanuun badan in ay ka bixin doonaan weerar aynkaasi sidoo kale weerarkan waxa uu noqday weerarkii ugu horeeyay ama duqeyntii ugu horeysay oo ciidamada Yahuuda ay ka fuliyeen caasimadda Beirut ee dalka Lubnaan tan iyo 2006 oo dagaal uu xilligaasi ka dhex qarxay Xisbullah iyo sidoo kale ciidamada Yahuuda ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu iyo sidoo kale Yoav Gallant oo wasiirka gaashaandhigga Israel ayaa marar badan oo hore ku hanjabay in ay beegsan doonaan oo ay raadsan doonaan madaxda Hamas iyo sidoo kale xubnaha ururada kale ee hubeysan ee Falastiiniinta ah ee ku kala sugan dunida dacaladeeda isla markaana dhammaantoodba ay xaqiijin doonaan in ay dilaan oo ay ka takhalusaan 80 dumar ah oo markaasi lagu hayo xabsiga Damon Israel oo la sheegay in xaalad aad u xun ay markaasi ku jiraan
siddeetankan dumarka ah ee Falastiiniinta ah ayaa la sheegayaa in ay ku jirto haweeney uur leh iyo sidoo kaleete haweeney 82 sano jir ah oo ka soo jeeda marinka Gaza ee Falastiin, kuwaasi oo lagu hayo xabsigan Damoon isla markaana lagu dhibaateynayo. haweeneyda uurka leh ayaa la sheegayaa in ay wajahaysa xaalad khatar ah maadaama cunnadii laga reebtay. cunnada kaliya ee markaasi la siinayo mar walibana ay tahay cunno aad u gubatay, aan dhadhan lahayn, aanan karsanayn, oo xitaa aad u ur badan, aad u qarmoon. waxaana la sheegayaa in haweenkan Falastiiniinta ah ee xabsigaasi lagu hayo in dhibaatooyin badan ay iminkan marayaan. wararka qaar ee maanta soo baxayo sidaan ka arkay wargeyska The Palestine Captives waxa ay tilmaamayaanba in 80kii maalmood ee lasoo dhaafay in haweenkan tirada badan ee Falastiiniinta ah in xaaladoodu ay ka sii daraysay. qaar ka mid ah waxaa la sheegayaa in jirdil lagu hayo oo xabsigaasi lagu dhibaateynayo, qaar kale oo la sheegayo in iyagana waxyeelo loo geysanayo oo xadgudubyo ee ka dhana aadanaha xitaa lagu hayo, iyo qaar kale oo la sheegayo xitaa in dharkii laga siibay isla markaana ay habeenkii halis ugu jiraan qabowga daran ee markaasi ka jira gudaha xabsigaasi. waxaa taasi u sii dheer cunnada oo laga reebtay, iyadoona cunnada kaliya ee markaasi la siinayo la sheegay inay tahay mid aanan karsanayn oo aad u ur badan isla markaana aan xitaa la cuni karin. waxaa taasi u sii dheer haweenkan Falastiiniinta ah ee xabsigan Damoon lagu hayo in halkii qol iyaga oo 12 haween ah in markaasi la isugu geeyey, qaar badan oo ka mid ah iyagoo aanan haysan busto iyo dharkii ay huwan lahaayeenba in halkaasi lagu dhibaateynayo. qaar badan waxaa xitaa la sheegayaa in ay weli xiran yihiin oo aysan iska bedelin xitaa dharkii ay ku yimaadeen xabsigaasi markii la keenayay. waxaana loo diiday xitaa in dhar kale oo dheeraad ah oo isaga bedelaan dharka ay maanta qabaan in ay xirtaan ama xitaa bannaanka looga keeno. qaar badan oo ka mid ah haweenkan Falastiiniinta ah ee xabsigan Damoon lagu hayo ayaa la sheegayaa in ay la xanuunsan yihiin cudurrada raaga iyo xanuuno kale oo tiro badan, isla markaana saraakiisha xabsigaasi u qaabilsan ee Israa'iiliinta ahna ay u diideen in adeeg caafimaad ay markaasi helaan ama xitaa in ay booqdaan isbitaal oo markaasi laga daaweeyay xanuunadan ay la dhibaataysan yihiin. qaar badan oo ka mid ah haweenkan ayaa la sheegaya in xaalad khatar ah iminkan ay ku sugan yihiin, waxaana loogu baaqay hay-adda laanqeyrta cas ee caalamiga ah in ay boogato maxaabiistan Falastiiniinta ah ee lagu dhibaateynaya xabsiga Damoon isla markaana ay ka shaqeeyaan sidii xuquuqdooda oo dhammaystiran ay markaasi u heli lahaayeen. wararka kale aan arkay sidoo kale waxay la xiriiraan askari uu dhalay nin Yahuudda wadaad u ah oo maalmo ka hor xitaa sheegay in uu soo saaray fadwa oo uu ugu sheegayo Israa'iiliintan xag jirka ah ee ku nool dhulka la haysta ee Falastiin in ay kufsadaan dhammaan gabdhaha iyo haweenka Falastiiniinta ah ee markaasi lagu dhibaateynayo dhulka la haysta ee Falastiin. waa ninkan lagu magacaabo Rabbi Yaakov Madin, wiil uu dhalay oo lagu magacaabo Elisha Madin oo ka tirsan ciidamada militariga Israa'iil ayaa la sheegayaa inuu noqday halka askari ee ka badbaaday cutubka paratroopaska ee ka tirsan ciidamada militariga Israa'iil oo lala beegsaday walxaha qarxa isla markaana lagu xasuuqay gudaha marinka Gaza ee Falastiin. dhammaan askartii ay isla socdeen oo isla shaqaynayeen oo isku cutubka ay ahaayeen ayaa la sheegay in la dilay, isaga oo kaliya ayaa ka badbaaday weerarkaasi. warbaahinta Israa'iil marka maanta waxay soo bandhigeen muuqaalkiisa iyo sawirkiisa, waxaana laga arkayaa isaga oo labada logood markaasi laga jaray. Rabbi Yaakov Madin, wiilkiisa Elisha Madin, waxa uu noqday mid aan lugihii lahayn, isaga oo luga la'aan ahna dib ugu soo laabtay dhulka la haysta ee Falastiin. arrintan ayaa si aad ah loo hadalhayaa. aabihiisna waxaan ka soo sheekeeyey in hadda ka hor ama maalmo ka horba uu sheegay in fadwo uu soo saarayo isla markaana ugu ogolaanayo Israa'iiliinta lagu dagaamayay dhulka la haysta ee Falastiin in haweenka iyo dumarka Falastiiniinta ah ay kufsadaan oo xor ay u yihiinba in sidaasi ay sameeyaan. laakiinse ninkan waxaa lagu ciqaabay oo maanta uu la xanuunsanaya wiilkiisa Elisha Madin in isaga oo luga la'aan ah in uu u soo laabto, iyadoona ciidamadii ay isku cutubka ahaayeen oo dhanba lagu xasuuqay gudaha marinka Gaza ee Falastiin. tani sidoo kale waxay muujinaysaa xasuuqa ay wajahayaan ciidamada Yahuudda ay dullaanka ku qaaday marinka Gaza ee Falastiin. wararka kale aan arkay sidoo kale waxay la xiriiraan Allah naxariistee Cabdulraxmaan
Al-Bahash oo markaasi ka tirsanaa hoggaanka sare ee PFLP-da ururka xoreynta Falastiin oo maanta la xaqiijiyey in lagu dilay xabsiga Megiddo ee gudaha Israa'iil oo waqti badan markaasi lagu dhibaateynayay. Xubnaha dhaqdhaqaaqa ee xoreynta Falastiin ayaa maanta si rasmi ah u xaqiijiyey in Cabdulraxmaan oo 23 sano jir ahaa isla markaana ka soo jeeda magaalada Nablus in lagu dhibaateeyey xabsigan Megiddo waqti badan oo jirdil iyo xadgudubyo ka dhan ah aadanaha lagu hayeyna waxaa markaasi maanta la shaaciyey in Cabdulraxmaan ugu dambeyn uu ku dhintay gudaha xabsigaasi. marka ciidamada Israa'iil waxaa lagu eedeynayaa in shacabka Falastiiniinta ah oo xabsiyada ay ku hayaan in dhibaatooyin badan ay u geysanayaan halkaasina lagu dhibaateynayo cunadii loo diiday xuquuqdii ay lahaayeen markaasi meesha laga saaray halkaasina habeen iyo maalin jirdil iyo xadgudubyo ka dhan ah aadanaha markaasi loo geysanayo. Cabdulraxmaan Basim Al-Bahash ma ahan Falastiinigii ugu horeeyay oo markaasi lagu dilay gudaha xabsiyadan Israa'iil ay ku hayaan in ka badan 8,000 ay Falastiiniinta ah. Isbuucyadii la soo dhaafay waxaa xitaa aad loo hadalhayay shacab kale oo Falastiiniin ah oo iyagana ku dhintay gudaha xabsiyadan kadib markii jirdil aad u xoog badan halkaasi loogu geystay. wararka kale ee markaasi aan arkay sidoo kale waxay la xiriiraan xubnaha hubeysan ee iska caabinta Islaamiga ah ee dalkaasi Ciraaq oo maanta weeraradii ugu xoogganaa abid ku qaaday saldhigyada ciidamada militariga Mareykanka ay ku leeyihiin Ciraaq iyo Suuriya. weerar xoog leh oo markaasi loo adeegsaday diyaarado aan duuliye lahayn oo drones ah oo laga buuxiyey walxaha qarxa ayaa waxa ay ku weerareen dagaalamayaashan saldhigga ciidamada militariga Mareykanka ay ku leeyihiin meel u dhow garoonka diyaaradaha ee magaalada Erbil ismaamulka Kurdistaan ee waqooyiga waddanka Ciraaq. waxaana la sheegayaa iyo xitaa sida laga arkay muuqaalada la faafiyay oo baraha bulshada la soo dhigay in uu jiro khasaare ka dhashay weerarkaasi. weerarka labaad oo markaasi ay fuliyeen dagaalamayaashana waxa ay ku qaadeen xirada ciidamada militariga Mareykanka ay ku leeyihiin deegaanka Al-Shadaadi ee waddankaasi Suuriya waxaana halkaasi la eegtay madaafiic tiro badan iyo gantaallo sida markaasi wararku ay tilmaamayaan. dhanka kale saldhigga Abu Hajar oo ciidamada militariga Mareykanka ay ku leeyihiin meel u dhow magaalada Ramlan ee dalkaasi Suuriya waxaa la eegtay diyaarado aan duuliye lahayn oo drones ah oo laga soo buuxiyey walxaha qarxa. sidaas si la mid ah xubnahan iska caabinta Islaamiga ee dalkaasi Ciraaq waxaa sidoo kale ay xaqiijiyeen in maanta saldhigga ciidamada militariga Mareykanka Al-Malikiya ee waqooyi bari ee dalkaasi Suuriya gaar ahaan gobolka Al-Hasake in ay la eegteen diyaarado drones ah oo ay ka buuxiyeen walxaha qarxa. waxaana la sheegayaa in kani uu ahaa weerarkii ugu xoogganaa abid ee markaasi la eegtay ama lagu qaaday saldhigyada ciidamada Mareykanka ay ku leeyihiin Ciraaq iyo Suuriya. waxaa xitaa la soo tabinayaa in ay jiraan saraakiil ka tirsan ciidamada militariga Mareykanka oo ku dhintay kuna dhaawacmay weeraradan ay maanta markaasi qaadeen dagaalamayaashan taageerada u muujinayo walaalahooda Falastiiniinta ah ee lagu dhibaateynayo marinka Gaza ee Falastiin. dhanka kale maanta madaxda ugu sareysa ee Jihaadul Islaam iyo sidoo kale Xamaas waxa ay dowladda Masar u gudbiyeen soo jeedin rasmi ah oo markaasi ay la xiriirta heshiiska xabad joojinta ee la dalbanayo in laga gaaro dagaalka iminkan Gaza ka socda. madaxdan waxaa markaasi ay tilmaameen in soo jeedintan ay u gudbiyeen Masar in ay la xiriirta in marka ugu horeyso ka hor inta aan heshiis rasmi ah laga gaarin maxaabiis bedelashada oo aysan soo sii daynin Israa'iiliinta weli ay ku hayaan gudaha marinka Gaza ee Falastiin in ay qasab tahay in dagaalkan gabi ahaantiisaba la joojiyo ciidamada Yahuudda ay soo afjaraan duqeymaha ay ka wadaan Gaza iyo waliba in ciidamada Yahuudda gabi ahaanba dhammaantood ay ka baxaan marinka Gaza ee Falastiin. Xamaas iyo Jihaadul Islaam waxay leeyihiin haddii aan sidaasi la sameynaynin oo ciidamada Yahuudda dhammaantoodba aysan ka baxaynin Gaza duqeymahan iyo weeraradan ay wadaan ciidamada Yahuuddana aan la joojinaynin wax heshiis ah oo aan gaari karna ma lahan. waxaa iminkan laga warsugi doonaa Masar iyo sidoo kale qaabka Israa'iil ay uga jawaab celin doonto soo jeedintan maanta ay soo gudbiyeen Xamaas iyo sidoo kale Jihaadul Islaam. labadaba waxa ay leeyihiin waxa loo yaqaan all for all oo markaasi ah maxaabiista aynu haysano ee 129 ah ee aynu ku hayno marinka Gaza ee Falastiin waxaan ku bedelanaynaa in ka badan 8,000 ee maxaabiista ah ee Falastiiniinta ah ee markaasi lagu hayo xabsiyada Israa'iil. haddii sidaasi ay dhaceen waxay leeyihiin waxaan diyaar u nahay in dagaalkan aynu sii wadno
ilaa keenna ugu dambeeya markaasi uu ka shahiidayo. dhanka kale waxaa sii xoogaysanaya khasaaraha soo gaaraya ciidamada Yahuudda ee duulaanka ku qaaday marinka Gaza ee Falastiin. warbaahinta Israa'iil oo aan fiirinayay waxay leeyihiin 24 saac ee la soo dhaafay ilaa 31 askari oo ka tirsan ciidamada militariga Israa'iil waxaa lagu dhaawacay gudaha marinka Gaza ee Falastiin. ma aysan sheegin ilaa xilligan tirada askarta looga dilay gudaha marinka Gaza ee Falastiin 24 saac ee la soo dhaafay. 31 askari oo ay sheegeen waxay leeyihiin dhaawac oo kaliya ayaa soo gaaray. hayeeshee marka aad fiiriso Xamaas iyo xubnahan iska caawinta Falastiiniinta ee ka dagaalamaya Gaza waxay leeyihiin in ka badan 43 askari oo ciidamada Yahuudda ka tirsan ayaan 24 saac ee la soo dhaafay ku xasuuqnay kuna dilnay gudaha marinka Gaza ee Falastiin. xogta rasmiga ah ee militariga Yahuudda ay soo saarayaan oo 100% aanan waxba ka jirin waxay leeyihiin 7 Oktoobar ee sanadkii aynu soo dhaafnay oo dagaalkan uu qarxay 507 askari oo ciidamada militariga Israa'iil ka tirsan ayaa la inaga dilay. 2265 kalena dhaawacyo culus ayaa markaasi ka soo gaaray dagaalkan ay leeyihiin. laakiinse xogta rasmiga ah ee markaasi la hayo waxay tilmaamaysaa in dhimashada iyo dhaawaca marka la isku daro in tiradooda askartan ay kor u dhaafayso ilaa 8,000 oo askari. xogta rasmiga ah ee militarigan ay soo bandhigayaan sidoo kale waxay leeyihiin 983 askari oo ciidamada militariga Yahuudda ka tirsan ayaa lagu dhaawacay marinka Gaza ee Falastiin tan iyo xilligii duulaanka ay ku qaadeen halkaasi. hayeeshee wararku waxay tilmaamayaan in tirada ay intaasi ka sii badan tahay oo Yahuudda ay qaranayaan jabka iyo xasuuqa markaasi soo gaaray. ugu dambeyn marka waxaa maanta si rasmi ah loo xaqiijiyay in ciidamada Yahuudda ay haystaan meydadka ilaa 450 Falastiiniin ah oo markaasi ay dileen. waxaana la sheegayaa in meydadka Falastiiniintan ay ku aasan yihiin ama lagu aasayba qabuuraha Israa'iiliinta qaar ka mid ah iyo sidoo kale inay ku keedsan yihiin xarumaha meydadka lagu kaydiyo ee gudaha Israa'iil. 256 ka mid ah waxaa la sheegayaa in la aasay oo markaasi lagu aasay qabuuraha Israa'iil ku yaallo halka ay ku aasan yihiin kaliya ay garanayaan madaxda ugu sareysa ee ciidamada militariga Israa'iil. 18 maxaabiis oo markaasi ku dhintay xabsiyada Israa'iil ayaa ka mid ah meydadka ay Yahuudda markaasi haystaan. meydadka ay haystaan sidoo kale waxaa ka mid ah 22 caruur ah iyo 5 dumar ah oo 4 ka mid ah la sheegay in la aasay oo qabuuraha markaasi gudaha Israa'iil lagu aasay isla markaana militariga oo kaliya ay garanayaan halka lagu aasay dumarkaasi. 7 Oktoobar 7 sidoo kale meydadka 47 qof oo Falastiiniin ah oo tan iyo xilligaasi la dilay ay dawladda Yahuudda markaasi haystaan sida la sheegayo. sanadkii aynu soo dhaafnay 2023 ciidamada Yahuudda waxay haysteen ilaa meydadka 101 qof oo Falastiiniin ah oo 28 ka mid ah markaasi ugu dambeyn ay soo fasaxeen ama ay soo sii daayeen ayna u ogolaadeen qoysaskooda in markaasi ay aastaan. hayeeshee waxay diideen in ay qoysaska u soo daayaan oo ay ku soo wareejiyaan meydadka 79 Falastiiniin ah oo markaasi qaar badan oo ka mid ah gacantooda ku baxay ama markaasiba ku shahiiday weeraro ay ciidamada Yahuudda markaasi ka geysteen gudaha dhulka la haysta ee Falastiin. tiradan laguma darin meydadka ciidamada Yahuudda la sheegay in ay kala baxeen qabuuraha marinka Gaza ee Falastiin 7 Oktoobar 7 oo dagaalkan uu markaasi qarxay ama tan iyo xilligii duulaanka ay ku qaadeen marinka Gaza ee Falastiin oo la soo tabinayay in gudaha isbitaalka Darushifa ee waqooyiga marinka Gaza ee Falastiin iyo sidoo kale qabuuraha Jabaaliya ee waqooyiga marinka Gaza ee Falastiin in ay kala baxeen meydadka Falastiiniin tiro badan oo halkaasi lagu aasay isla markaana ku shahiiday duqeymihii ciidamada Yahuudda ay geysanayeen 10 Oktoobar 7 ilaa xilligan meydadkooda lama hayo. qaar ka mid ah shacabkan Falastiiniinta ah oo meydadkooda xitaa la soo celiyay waxaa la sheegayaa in lagala baxay xubnaha muhiimka ee jirka sida beerka oo kale, wadnaha, kaliyaha iyo xubnihii muhiimka ahaa ee jirka in markaasi lagala baxay iyaga oo aan xubnahaasi lahayna in ay markaasi soo celiyeen xabaal wadareedna looga sameeyay gudaha marinka Gaza ee Falastiin. waa tahay intaasi ayaan uga gudbayaa wararkeennii ugu dambeeyay ee marinka Gaza ee Falastiin.